السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أصحابي مالك استواد شوكتان كسر دوادا مركلة يوميت كم إذا برنامج هذا عن اليوم كوترا كان برنامج هذا كوسو قد بين يوحى كم إذا سفير هذا وضمضة فلسطين يو ألجيريا وجوجا قرمضة مذوبي أيا أوهين لدعي حلي أي لها لين قولها أمانك هذا أوهين تاسو dhibaatada Gaza ka socota ayay ahayd laakiin falcelin fara badan ayaa ka timid oo dhanka dawladaha Carabta iyo kuwa Islaamka ah maxaa markaa la leeyahay qaar waxay leeyihiin inay sameeyaan way ahayd qaarna waxay leeyihiin ma aha hadaba wixii meesha ay ka sheegeen iyo wixii meesha ka dhacay iyo falcelinta dhacday barnaamijkan ku soo faahfaahinayna askari ka tirsan ciidanka Israa'iil oo kuwa wada ka tarabiilka ama makiinadaha dhulka lagu qodo ayaa lagu dilay Gaza maanta markale markii muqaawamadu ay u soo dhuunteen oo meel u dhow ay markaa ay ku dileen hadaba sida ay wax u dhaceen iyana barnaamijka ayaa idinku faahfaahin doonaa wafdi ballaaran oo ka socda dawladaha Carabta oo axadda soo socota tagi doona magaalada Ramallah ee dhulka Falastiiniyiinta halka ay joogaan Mahmoud Abbas iyo maamulkiisa ujeedadu maxay tahay hadaba arrimo waaweyn oo halka looga hadli doono oo guud ahaan Falastiin quseeya ina barnaamijku eegi doonaa Witkoff iyo Netanyahu oo xaalku ku sii xumaanayana mada midoobay ayaa waxa ay ka hadlayeen xaaladda Falastiin gaar ahaan Gaza kulankan waxaa ka soo shaqeeyay safiirka Algeria u fadhiya halkaas waxaa lagu casuumay manduubka ama wakiilka Falastiin ee qaramada midoobay wakiil dhameystiran maaha safiir dhameystiran maaha laakiin waa magaca manduuba la siiyaa oo ah wakiil Falastiin macnaha meesha u jooga labadoodu marka waxay ka hadlayeen dhibaatada haysata reer Gaza iyo sida dunidu uga aamusan tahay falalka Israa'iil ay ku kacayso safiirka Falastiin ama manduubka Falastiin ayaa hadlay dhibaatada ay geysanayso Israa'iil si u waday wuxuu keenay dadkii oo la gubay oo maaragtay bambooyin lala dhacay oo gubanaya adduunka uusan ka hadlayn caruurtii oo la laynayo dadkii daada oo la laynayo cid kastoo la iska laynayo kadib wuxuu ceshan waayay ilintii waxaa ka daadatay oohin waxba wuu isku aadin waayo ciil dartiis wuxuu garaacayay miiska uu ku fadhiyo wuuna ooynayay cidda u adkaysan karta waa ciddii ayuu lahaa caruurtaas sidaa loo laynayo yaa adkaysan kara dhibaatada dadkaa loo geysanay annaga dhan caruur waa leenahay qoysas aan leenahay caruurteenu ka warrama sida hadday u gubtaan marka ninkan hadalkii iyo oohintii waxaa ka tambadiyay oohintii waxaa dhanka kale hadalkii qaatay isagana safiirka Algeria oo dawladda Algeria iyada ayaa kulanka golaha ammaanka ka soo shaqeysay isaguna soo warka u waday wuxuu la ooyay markuu soo gaaray dhakhtaradii todobaadyadii la soo dhaafay miidiyaha adduunka waxaa qabsaday gabar dhakhtarad ah oo 9 cunug oo ay dhashay la gubay oo la dilay ninkeedina dhaawac culus uu soo gaaray gabadha dhakhtarada ahayd subaxii ayay soo bixi jirtay isbitaalka Khan Yunis dadka dhibaatada qaba iyo caruurta ay daweyn jirtay iyadoo gurigeedii ka soo tagtay oo caruurtii kale inay daweyso u soo baxday ayaa isbitaalkii ay joogtay waxa looga dabageeyay caruurteedii oo qaar gubatay nolol iska dhaaf dhaawac iska dhaaf waa gubteen waa la garan laayay iyo kuwa kale oo dhaawac ah ninkeedii oo dhaawac ah ayaa la geeyay marka sawiradii gabadhu soo qaatay halkaas ayuu ku muujinayay marka isaguna uu ooynayay wuxuu lahaa waxa kan wax la aqbali kara miyaa waxa Israa'iil ay sameynayso wax saas loo gali kara miyaa ay leedahay hadaba marka hore ay tuso kadib falanqayaashu waxay ka yiraahdeen iyo social media sida looga falceliyo sheekada ayaynu gali doonaa Al Jazeera waxay tiri oohin iyo sawirro iyo jir gubanaya ayaa waxay hareeyeen fadhigii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay hareeyeen
haddaba waxay sheegtay telefishinka aljazeera wuxuu yidhi wakiilada falastiin iyo algeria ee golaha ammaanka joogay ayaa waxay ka hadlayeen waxyaabaha foolxumada ee israa'iil ay ku kacayso dagaalka xasuuqa ah ee ay ka wado gaza oo ay kula kacayso shacabka halkaas ku nool. waxay sheegeen in oohinta wakiilka falastiin ee qaramada midoobay ninka la yidhaahdo riyaad mansuur ay markaa ahayd mid uu kaga hadlayay dhibaatada haysata caruurta falastiin ee gaza. waxa uu sidoo kale ka hadlay caruurta iska gubanaysa oo bambooyinka lala dhacayo iyagoo aan waxba galabsan, iyadoo sidoo kale safiirka algeria isaguna uu ka hadlay arrintaas. marka alcumuum muhiimaddu waxay ahayd iyagu inay caalamka gaar ahaan golaha ammaanka u soo bandhigaan waxa dhabta meesha ka jira, laakiin warkoodii markuu soo warbaahintu ka hadashay oo social mediahii la keenay falcelino kala duwan oo helay, dad badan way ka caroodeen. waxay yidhahdeen waa dullinnimo, waa axmaqnimo, waa wax kama jiraan. nimankaa carabta ay meesha ku dhex ooynayay maxay u ooynayaan eli waay u ooynayaan? israa'iil ma iska dhiciyaan? maxay u ooynayaan? yaa wax u qabanaya? hadda waa ooyeen, maxaa la qabtay? waa lagu faysteenayaa. israa'iiliyiinta waxay leeyihin carabtii golaha ammaanka xataa waa uga oysiinay leey. iyay ku hor ooynayaan maraykan iyo ku hor ooynayaan. maxaa laga qaban karaa israa'iil? iyagoo hortood intaysan oynin golaha ammaanka amaradii uu soo saaray israa'iil ma ku dhaqantay? may. yaa wax ka qabanaya? marka waxay leeyihin nimanka kanu sumcaddii carabta iyo ismuslimiinta meel uga dhaceen. hadday ooynayaan maxay ka qabanayaan meel? oohintu waa bahdilnimo meeshii ugu xumeeday leeyihin. laba safiiroo meesha inta fariistay iska ooynaya oo sawirra soo qaadanaya, dadkeeni saanaa la yeelayaa, saanaa la yeelayaa. marka waxaa leeyahy dadka badankoodu arrinkaa horta waa diideen. in yar ayaa difaacaysoo leh dadka kanu waxay meesha u fariisteen in adduunka ay u gudbayaan dhibaatada israa'iil ay geysanayso, laakiin way iscelin waayeen. macnaha dad waaweyn waaye, odayaal waaye, wixii markay ka sheekaynayeen ay iscelin waayeen. dareenkii waxaa ka tambadiyey dhibaatada iyo murugada iyo mushkiladda haysataa qalbigooda waxa ka guuxaya, markaasaa ilintu ceshan waayeen. laakiin iyagu markii hore meesha uma imaanin inay iska ooyaan yidhaahdeen. marka sheekooyinkaas cajiibka ah ayaa halkaa marka ka dhacay, oo runtii waxay ahaayeen xalay wixii dhacay wax aad iyo aad ilaa hadda loo hadal hayay ahaayeen. waaya qodobka halkaasaa kaga gudbaynaa. magaalada gaza maanta xaaladdu siday ahayd. goordhow markaan arkayay dad tiro badanaa dhintay, maanta haddana xasuuqyo kalaa dhacay. dadka dhintay ilaa 62 qof saake laga soo bilaabay ilaa hadda. meelo kala duwan israa'iil duqeynaysaa. markii waan iyo wada hadallo lasoo sheegaba wixii bambooyin ay hayeenay kusii daayaan gaza. sheeko waalana marka halkaa iyaduna ka socota. haddaba wararkii ugu dambeeyey warbaahintu ay ka hadlayaan markaan idin soo gudbiyo. muqaawamadu waxay sheegeen inay dileen askari israa'iili ah waqooyiga gaza. ciidanka israa'iil ayaa qirtay in laga dilay askari laguna bartilmaamaysaday waqooyiga gaza isagoo ku dhex jira oo wadaya mid ka mida makiinadaha dhulka qoda ama katarabiilka la yidhaahdo, wuxuuna ka tirsanaa guutada la yidhaahdo alhandasatu alcaskariya ama qaybta engineerinka ee militariga ayuu ka tirsanaa ninkaas. marka waa ninkan aa arkaysaan oo katarabiilka wata ama cagafcagafta wata. ninkan ayay nagta ka saareen oo ay saake ku quraacdeen muqaawamada. waay marka hal qof iyo laba qof iyo meeshaan meeqay dilayaan maalin kasta waxa u rukuman markay ugu yartahay 50 60 ay ka takhalusiyaan. marka sheekada marka walwalku waa badan yahay, xaaladdu farahay kasii baxaysaa. dhanka kale maraykanka hintisihii uu waday
oo Israa'iil iyo Xamaas loo gudbiyay waxay u muuqataa leey Israa'iil inay diidayso maba rabtaba macnaha Netanyahu barnaamijkeygii hore kaga sheekay hadday Smotrich bin Gavir soo hadlaan isagu bas waayo waxaas waa ka baxay xabad joojin daa'im ma maqli karaan laakiin wax maalmo ah oo maxaabiis lagu soo deenayo way ogol yihiin laakiin baashu hadday daa'im iyo joogto iyo xabad joojin joogto ay ciidankiina kala soo baxa ma rabaan in saas lagu jiro dadka la dhameeyay iyagu rabaan Netanyahu marka isaguna kooxdaas ku jira haddaba sheeko laga qoray Witkoff xaaladiisa iyo Israa'iil halka ay kala marayaan haddaba warbaahinta Israa'iil waxay soo xiganayaan mas'uul oo marka Israa'iil wuxuu leeyahay sabarkii ayaa ka dhamaanaya ninka la yiraahdo Witkoff uu u hayay Tel Aviv journalka la yiraahdo Times of Israel ayaa wuxuu qoray isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ah in kulankii ka dhacay Washington ee ugu dambeeyay ee dhexmaray ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe qaabilsan Steve Witkoff ninka la yiraahdo iyo wasiirka arrimaha istiraatiijiyadda iyo madaxa kooxda wada hadallada Israa'iil u qaabilsan Ron Dermer ninka la yiraahdo in marka wada hadalladaasu ay ku dhamaadeen isfahmi waa sida daraadeedna waxa leeyahay Mareykanku arinka Israa'iil ku saabsan ninka u qaabilsan wuxuu leeyahay sabarka ka dhamaanay sabara ka dhamaanay waxaas ma la qoro meeshaan Israa'iil waxay wadataa ninka Witkoff la leeyahay marka muxuu sameyn karaa waxuu sameyn kara male dib ugu laaban doonaa ileen nimanka wax falanqeynaya Israa'iil waxba ma dhihi karo ma qasbi karo waxba ma sameyn karo wixii Israa'iil ay u yeeriso soo qorqori doonaa oo haddana dib ugu soo celin doonaa masraxa haddana Xamaas diiday doonta leey intii sheekooyinkii la soo maray leeyahay waxaan dhan waxay leeyihiin waa wixii la soo maray saacadihii la soo dhaafay ama toddobaadyadii la soo dhaafay wixii la bartay leeyahay Xamaas haday aqbasho Israa'iil waa diiday Israa'iil haday ogolaato Xamaas waa diiday Witkoff wixii wax ka soo bedela wuu soo celinaa haddana waa la diidaa intaas la joogaa yiraahdeen laakiin yaa dhib qaba Falastiiniyiinta dhib qaba xasuuqa lagu wada gaajaysiina lagu wada cid hadli karta male cid wax ka daba hadli karta male ilaahooda si qaba marka ilaahay dadka ha uu kaalmeeyo haysiinta kadib waxaan u gudbi doonaa wafdi ballaaran oo dawladda Carabeed ka socda ayaa ku wajahan xarunta maamulka Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas hogaamiyo magaalada Ramallah haddaba halka maxay u tagi doontaa Carabta waana waxa leeyahay ziyaaro ama booqasho naadir ah waay maba dhacdaba waa mar in intaasoo wasiiran oo Carabeed ayaa waxay ku wajahan yihiin magaalada Ramallah iyagoo la kulmi doona Mahmoud Abbas qorshe u wadaana la leeyahay qorshaha marka waxa leeyahay Mareykankana gadaal uu ka taagan yahay in arinta Gaza sidii loo maamuli lahaa iyo arimaheeda iyo dagaalkan hadii la joojiyo waa ku jirta sidii dawlad Falastiin loo heli lahaa oo Falastiiniyiintu isu raacsan yihiin sababtoo Sacuudiga iyo Faransiisku waxay wadaan bisha June ee soo socota inay shir qabtaan oo dawlad Falastiin markay yaa noqonaya mahamida hadda dhisana noqonaysa maqolooyinka kale ee muqaawamada lagu soo daraya waxay u baahan tahay laftirkeeda in maaragtay laga heshiyo u baahan tahay oo Falastiiniyiinta dhexdoodu ay isu yimaadaan haddaba jirada Ra'yul Yawm ayaa waxay qortay booqasho naadir ah oo aan hore loo sii sheegin ayaa wafdi Carabeed oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ay ku tagi doonaan magaalada Ramallah si ay halka ula kulmaan Mahmoud Abbas iyadoo markaa laga shaqayn doono oo loo gogol xaari doono shirka Sacuudiga iyo Faransiisku ay wadaan oo ku saabsan in la helo laba dawladood haddaba waxaa la sheegayaa warbixinta way sii socotay wasiirada wafdiga uu hogaaminayo wasiirka Sacuudiga Faisal bin Farhan waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda Urdun wasiirka arrimaha dibadda Masar wasiirka arrimaha dibadda Qatar Bahrain Saldanada Oman iyadoo aan la xaqiijin Imaaraadka iyo Kuwait iyaguna inay qayb ka yihiin wafdiga ilaa hadda marka Sacuudiga ayaa hawshan wata sida muuqata maadaama shirkii UN-ka uu soo dhow yahay marka dawladihii Carabta wasiiradoodii wuxuu dhan marka in Abbas lala kulmo oo qorshaha
dowlad Falastiin sida loo heli karo la isku raacsan yahay waxaasoo dhan marka in lagala hadlo ayay marka iyaguna u socdaan waxayna tagi doonaan leeyahay haddii alla idmo axadda soo socota marka maalinta axadda ee soo socota ayay halkaa ku ballansan yihiin oo Maxamuud Cabbaas ay la kulmi doonaan haddaba wixii warar ay ka soo kordha arrimaha barnaamijkan idin kula falanqayn doonaa